kuwii ciidamada sida qaldan u dilay waliba ciidamadaas fasax ku jiray maxkamadda waxay u jartay waaran ciidamada qalabka sidan waxay amraysaa qaybaheeda kala duwan inay si degdeg ah soo qabtaan ciidamada amniga ee ka howlgala deegaanada Hirshabeelle waxa xujo ku ah in ay soo qabtaan eedeysanayaashii si bareerka ah u dilay ciidamadii qaranka ee fasaxa ku jiray sida xaqdarada ah ee lagu dilay waxa idin hortaagan maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan idin soo booqanay maanta waxa idin ku bogaadinaynaa shaqada sharafta leh ee aad u haysaan qarankan oo hagar la'aanta ah nafhurnimada leh waa ku ammaanantihiin waana ku mahadsantihiin waxaad idin ku dhiirigelinaynaa shaqada inaa halkaas ka sii wadaan intaas kadib maxkamadda ciidamada qalabka sida maalmahan waxay joogtay furmaha dagaalka qaasatan degmadan Ceelbaraf oo ay u timid kiiskii foolka xumaay ee ka dhacay degmadan Ceelbaraf ee lagu laayay askartii fasaxa ku jiray laguna dilay sida xaqdarada ahaa taasoo ka yaabisay dhammaan shacabweynaha Soomaaliya iyo macallin dawladooda taasoo nagu noqotay dhacdo fajac leh wax la yaabo ah in la laayo la dilo si qaladna lagu dilo askar Soomaaliyeed oo fasax u socotay intaas kadib waxaana dhigay waa qabyaalada aad ay fool xun tahay waa wax xun waa wax qurun ah nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay idal taqal muslimaan bisayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar lawada qof oo muslimiin ah haday is dagaalaan kan la dilay iyo kan wax dilayba waa ahlu naar nabigana wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam sababta oo midka naarta ku galay la dilay waxay tahay asaga wuxuu ku dadaalayay ala qatl saaxibihi kaana xariisan ala qatl saaxibihi sidaas daraadeed kan la dilay iyo kan wax dilayba ahlu naar ay noqonayaan marka hadii nabiga oo ku sheegay in hadaad wax disho ama lagu dilaa naarta aad galaysaa maxaa ku qasbay walaalkayga inaad dagaal gasho dagaal qabiil aad gasho waa su'aal Soomaali aysan ka jawaabi karin intaas oo dhan waxay isku soo koobayaan dagaaladan qabiilada waxna tijin laga magaaray hore idinku sheegay maxalushaadkan muxuu yahay marka maxaa meeshu taagana maanta intaas waa xasuusin oo ah wadakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin waa idii xasuusinay maxalushaadkan maanta halka maxaa taaganahay waxa taaganahay sida hore idinku sheegay dhacdadii ka dhacday degmadan Ceelbaraf eerideed ee askarta lagu laayay annagana wada xanuun sida hore u sheegay ilaa haddana aan ka xunnahay oo la yaab nagu noqotay sidaas daraadeed qabyaalad waa waxun aan iska dhaafno dawladda Soomaaliya dagaaladan qabiilka ee soo noqnoqday way kaga darihiin dagaalada ay kula jiraan khawaarijta oo nabarkow waxa ah midka qabiilka sababtoo ah kan dagaalka shabaabka lagu jira waa mid la zuuli kara waa mid qofkii fikirkaas aaminsanaa oo ka toobad keeni kara dawladdan ku soo beeri kara ama mid ay lagu soo afjari kara laakiin dagaalkan qabiilka ah waa mid qofka oo u bareeray inuu walaalkiis ku dilo asaga og si xaq dar inuu ku dilaayo marka waa cudur dawladdana waxay ka diyaarisay barnaamijyo oo gaar ah maxkamadda ciidamadana barnaamijyadaas iyo shuruucdaas la dejiyay ay ku shaqeyn doontaa insha Allah ta'ala marka dagaalada qabiilka way kaga darihiin dagaalada lagu jiro khawaarijta dawladda Soomaaliya haddaba askarta Soomaaliyeed ee la laayay dadkii dilay maxkamaddu waxay faraysaa ciidamada qalabka sida in ay soo qabtaan waxayna u jartay waaran soo qabasho ah ciidamada amniga xujo waxa ku ah ciidamada amniga ee ka howlgala deegaanada Hirshabeelle waxa xujo ku ah in ay soo qabtaan eedeysanayaashii si bareerka ah u dilay ciidamadii qaranka ee fasaxa ku jiray sida xaqdarada ah ee lagu dilay shacabweynaha Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliyaba waxay ka warsugayaan talaabada ay qaadaan ciidamada amniga taasoo ay ku soo qabanayaan eedeysanayaashii dilay askarta kor aan ku soo sheegnay waana in ay ku soo qabtaan si degdeg ah waa inay ku keenaan nolol iyo geeri waana kaas ay fuliyaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayada waajibkeeda ma aha soo qabasho ma laha waajibkeeda wuxuu yahay in la hor keenaa eedeysanayaashii dambigaas galay ciidamada qalabka sida waxa imtixaan ku ah in ay hor keenaan maxkamadda fuliyaan amarka maxkamadda looguma haraayo dhibka ay geysteen kama nasanayno habeen imaal oo taaganahay ciidamada qalabka sida oo taagan maxkamaddan waa daba socotaa nimankaas eedeysanayaasha ee maleeshiyaadka ay askarta laayay
وإن لغو كينا نرل إيو غير مد لهلي كرا لغانا جازيا دنبي أي كجلان شعب كصوماليات دنبي أي كجلان أسكرتي لاين دنبي أي كجلان دريس كان وضن دنبي أي كجلان إذا ماذا قلب كسيدا